allaha u naxariistay waxa magaalada Jigjiga ee Itoobiya ku geeriyooday wariye Axmed Xasan Cawke oo kamid ahaa rugacayaasha saxaafadda Soomaaliyeed. Wararka ayaa sheegaya in wariye Axmed Xasan Cawke uu dhintay xanuunka dhanka wadnaha ah oo soo wajahay, iyadoo warar kalena ay tilmaamayaan in neeftu ay qabatay. allaha u naxariistay marxuumkan taariikhdiisa markaan dib u raacno. Axmed Xasan Cawke waxa uu ku biiray Radio Muqdisho 1972 isagoo aad ugu soo caanbaxay wararka iyo gaar ahaan tabinta ciyaaraha iyo madadaalada. waxa uu ka soo shaqeeyay telefishinkii Soomaaliya, kadibna waxa uu noqday afhayeenkii madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre allaha u naxariistay ilaa burburkii Soomaaliya. Cawke ayaa ahaa wariye caan ah oo dadku si weyn u yaqaanaan. waxa uu ku biiray laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da sanadkii 1996. waxa uu kaloo ka soo shaqeeyay laanta afka Soomaaliga ee VOA Voice of America. allaha u naxariistay waxa sidoo kale uu la soo shaqeeyay telefishinka afka Soomaaliga ee Universal TV-ga Home Cable iyo telefishinka Somaliland National TV. allaha u naxariistay marxuumkan ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda in meedkiisa la keeno Somaliland si halkaasi loogu aaso. maamulka iyo shaqaalaha wadajireed Home Cable TV waxay leeyihiin allaha u naxariisto marxuumka inta uu ka baxayna samari iimaan allaha ka siiyo. Kawsar Cabdiraxmaan Cilmi, Home Cable TV, magaalada Muqdisho.